shaqaale weynaha dekada berbera oo ay weheliyaan shacabka reer berbera ayaa saaka arooryadii hore iskugu soo baxay goob fagaara ah kuwaasi oo banaanbaxoodani u daaranaa amaba uu la xidhiidhay waa sida ay hadalka u dhigeen lacaga tiro badan oo kaga maqan shirkadda DB World geesta kale shaqaalahan cabanayay ayaa gabi ahaanba joojiyay shaqadii dekada berbera oo aan shaqaynin maalintii labaad sidoo kalena sheegay in shaqadii laga caydhiyay shaqaale tiro badan tan iyo markii ay qabsatay shirkadda DB World shaqaalahani oo iskugu soo baxay saaka arooryadii hore halkii ay ka shaqo tagi lahaayeen goob fagaara ah oo ah duleedka magaalada berbera ayaa cabashadooda ka dhiibtay halkaasi waxaana ka mid ahaa hadaladoodii رجبة صدق الصنود يا فرت الصنود كشقيني بلا حقوق ما كنت جسام بيدا كان شباب ما يكون ضرر بوحي ترين وحي نلام كي كتشري دكدة نلام بعد دكدة كتشري نلام بعد دكدة كتشري نلام كي دكدة كتشري إيش شغالة يوي لي هو تورتي ماشي هو يكسره waxaana loogu sheegay inay wax soo kordhinayaan shaqaale badan keenayaan arrinkaasi arrin dhacay maaha inay dekada la iibiyay ayay cadaynaysaa dhicina mayso waananu ka dagaalamaynaa inta halkaa joogto dhammi maaha shaqaaliyo kale wax weeye ummadii deganeed berbera lagu wareejiyay dekada cid ku wareejisayna aan la garanaynin meel ay ka yimaadeen aan la garanaynin cid ay u shaqeeyaan aan la garanayn shaqaalihii dekada 270 qof ayaa shaqadii laga eriyay dawladdu kama hadlin maxaa shaqaalaha lagu eriyay may oranin muxuu ahaayay cid kale oo soo hadal qaaday maamulkii gobolka kama hadlin waxay yiraahdeen waxaanu ka keesananaa shaqaale Filibiin baan ka keesananaa waxa la yiri shirkad baa idin qabsanaysa sanka caana laga leefay war iyagoon kiriin bakeelin ayay dadkii kala badheeriyeen kala badna ay yiraahdeen waxaan ku keesananaa Jabal Cali anagu ma aragna shirkad la yiraahdo DB World sheekadii argeysa ka dhacday milxiisadii asmacooday weeyaan anu ka xunnahay DB World ku salaysan dhalinyarta curdinka ee aqoonyahanka ay digada loo shaqeeyay 150 qof oo shaqaalaha baa leeyahay intii hadheena maanta waa la dareeray waxa ku jira dad xaasliye waxa la yiri malyan iyo 500 lagu shaqeeyay intii dhamaayo 10 ciyaar u soo bariistay waxaanu ka xunnahay dawladda Soomaaliland ilaahay horumar baan u soo wadnaa dadkan iyo dalkan waa leeyahay waxayna qabsaday dad tuuga waxayna qabsaday dad soo boobtigay waxayna qabsaday dad madaxayna iibiyay kaba haysta waagi bariiba waayo anigu ma ii shaqaalin dekada laakiin waxaan ahay dadweynaha ku nool waxa weeyaan waagi bariiba waxa la iibiyay haami baa la iibiyay laadhki baa la iibiyay meel walba la dekadi baa hadhay anagu dadka biyo baa la iibiyay waxba kuma nool maxaa ku lumay berbera hadii wali wax soo gaaraan waxba kuma noolin waxba lagu soo kordhinaya wadanka horumar baa laga sameeyaa baa laakiin wax horumar oo laga sameeyaa ma jirto dadka waxa weeye ninkii birta halkan dhigtay gawaadhida yiri war cashuuraya ayuunba yiri DB World baa tuunkii lacagta dawladdu wuxuu ku go'ayaa tuun qof leeyahay bilaadani dadkiina 300 horan waa leeyay 500 dambana waa leeyay Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka SAB TV magaalada Berbera